السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Kenya oo ka walwalsan in farmaajo uu dib ugu soo laabto markii labaad kursiga madaxweynaha Soomaaliya hadii aanu siciidan isaga harin tartanka loogu jiro doorashada madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo amar ku bixiyay in la soo afjaro xogaga ahlu sunna ee ka soo horjeeday jiritaanka maamulka galmudug kadib kulan uu Dhuusamareeb kula qaatay saraakiisha ciidanka ee hogaaminaysa howlgalka ka dhanka ah ahlu sunna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo ka degay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta si ay Soomaaliland heshiisyo cusub ula gasho xukuumadda Dubai al-shabaab oo sargaal ka tirsanaa hay'adda Niza ka afduubtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddaba sidee ugu suurta gashay wararka Gra TV ayaad ku daawan doontaan iyo madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni oo si carale kaga hadlay qaraxyadii gilgilay magaalada Kampala oo ay ka dambeeyeen kooxo ku kacsan dawladdiisa qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garooba ayagoo dhameystiran isku soo noqod habboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka ku bilaaba sidii hordhaca warkeena ardin kugu sheegay baa dawladda dalka Kenya ayaa ka walwalsan in farmaajo uu markii labaad dib ugu soo laabto kursiga madaxweynaha Soomaaliya hadii aanay isu tanaasulin musharaxiinta faraha badan ee ka socda garabyada mucaaradka ee isbarbar yaacaya si gaar ah madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dane ayay xukuumadda Nairobi farta ku fiiqday iyadoo oo sheegtay inuu kordhinayo fursadda uu farmaajo mar kale ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya hadii aanu si degdeg ah u tanaasulin oo awoodda aan la isugu geyn hal musharax oo ay isugu tagayaan maamulada Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale garabyada mucaaradka kadibna ay taageerayaan dalalka ka soo horjeeda dib u soo laabashada farmaajo ee Imaaraadka Kenya iyo kuwa reer galbeedku ay ugu horeeyaan xukuumadda Nairobi ayaa fariinta ku aadan in Siciidan uu isaga haro tartanka iyo doonista kursiga madaxweynaha Soomaaliya waxay u dhiibtay madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhawaanahan ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaana la sheegay in Kenya ay dareensan tahay walaac xoog leh oo la xiriira in dardarta uu ku socdo ololaha dib u doorashada Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay sababi karto hadii aan xal degdeg ah la helin ka hor doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya inay dhici karto in farmaajo uu si fudud ku soo baxo wareegyada hore kuna noqdo sidaasi markii labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xukuumadda Kenya ayaa la sheegay inay si weyn dardaaran u soo siisay madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka horinta aanu ka degin Garowe safar ku tagay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya halkaas oo uu kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Kenya oo u qaabilsan la socoshada arrimaha Soomaaliya siiba arrimaha doorashooyinka xubnaha Kenya ugu xil saaran arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo badankoodu ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee ay Soomaalidu u degto ayaa kulan ay la qaateen Axmed Madoobe waxa ay ku muujiyeen sida ay kaga walaacsan yihiin in farmaajo uu mar kale noqdo madaxweynaha Soomaaliya iyagoo sheegay intaasi ay dhabarjab ku tahay maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland iyo dawladda Kenya oo si weyn ay farmaajo isku hayeen una hardameen afartii sano iyo dheeraadkii uu xafiiska joogay waxay Kenya sheegtay hadii uu farmaajo mar labaad soo laabto intaasi ay u quus goyn karto hogaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Madoobe oo isagu ku taamayay inuu dhisto madaxweynaha soo socda kana dhigo shakhsi isaga aan ku soo duulayn maadaama intii uu farmaajo ahaa madaxweynaha Soomaaliya uu juhdi iyo awood kastaba ku bixiyay in laga taqalluso xilhaynta Axmed Madoobe ee Jubaland oo xitaa ciidanka xooga dalka ee laga daabulay Muqdisho ay isku dayeen inay ku duulaan Kismaayo balse ay ku guuldareysteen dawladda Kenya ayaa Axmed Madoobe u wakiilatay inuu Siciidan sida ugu dhaqsaha badan kaga dhaadhiciyo ka haritaanka tartanka doorashada Soomaaliya waxayna sheegtay hadii Siciidan uu ka qayb galo doorashada in uu kaliya fursad siin karo farmaajo oo uu kala qaybin karo codadka ka socda garabyada mucaaradka iyada oo tusaale loo soo qaatay
haddii Siciid Cabdilaahi Deni oo u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya iyo Farmaajo ay isugu soo haraan wareegga ugu dambeeya in ay xubnaha baarlamaanku door bidi doonaan in ay Farmaajo u codeeyaan mar labaad iyadoo oo taasi loo sababeeyay cadaawad gaar ah oo dhinacyada qaar ay u qabaan Siciid Deni si gaar ah ayaa la sheegay in xubnaha midowga musharaxiintu ay iminka dareensan yihiin in Deni iyo Farmaajo uu dhankooda Farmaajo u roon yahay marka ay isbarbar dhigaan sida uu Siciid Deni kaga baxay dhammaan ballamihii ay la galeen markii ay mucaaradku Farmaajo awoodda ku maquuniyeen uu Siciid Deni kaga faa'iideystay fursadii ay abuureen oo iminka isagu ku raadinayo kursiga madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhowr maalin ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa ka codsaday sida aynu ka soo xignay xubno ka tirsan madaxtooyada Garowe madaxweyne Siciid Deni inuu ka haro kalkan tartanka loogu jiro doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo uu ku ekaada maamulka Puntland oo iminka taariikh wanaagsan ka sameeyay maadaama uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Puntland gaarsiiya doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah sida darteedna uu dhammaystiro taariikhaha wanaagsan ee uu kaga tagay Puntland isuna diyaariyo ka qaybgalka doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee 2025 balse aanu sanadkan tartamin inkastoo sida aynu helnay Siciid Deni aanu wali aqbalin codsiga Axmed Madoobe haddana waxaa socda cadaadis xooggan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan oo Imaaraadka iyo Kenya ay ku jiraan oo lagu saarayo hogaamiyaha maamulka Puntland ka haritaanka tartanka loogu jiro kursiga madaxweynaha Soomaaliya fursada uu Siciid Deni u abuurayo Farmaajo ayaa sii kordhaysa waxaana xubnihii midowga musharaxiinta ee iyagu kolkii hore dareensanaa haddii iyaga iyo Farmaajo ay isugu soo haraan sanduuqa codaynta doorashada Soomaaliya inay qaadan doonaan marka la eego fursadaha ay helaan musharaxiinta garabyada mucaaradka iyo sida loo buurto waqti kasta marka la isbahaysto xilliga doorashada madaxweynaha kursiga jooga ayaa hadda dareemaya hoos u dhac iyo niyad jab kadib markii ay arkeen Siciid Deni oo gooni isu taagay oo doonaya inuu iskiis u tartamo siina kala qaybiyo codadka ay mucaaradku heli lahaayeen taa oo kalifi karta in doorashada ay ka wada qayb galaan saddex dhinac oo iska soo horjeeda dhan waa madaxweynaha Puntland oo gaashaanbuur la ah kan Jubbaland dhanka kalena waa mucaaradka oo aan haysan garba siyaasadeed iyo maamul goboleedyo gadaal ka taagan halka dhanka saddexaadna uu yahay madaxweynaha kursiga fadhiya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maamul goboleedyada qaar sida Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug taageero ka helaya kuna taamaya inuu kursiga ku soo laabto sida ay aaminsan yihiin falanqeeyaasha dhinaca siyaasadda ee la socda siyaasadda isrogrogta ee Soomaaliya waxay sheegayaan haddii sidan doorashada lagu galo in Farmaajo uu haysto rajo ka badan 70% oo uu ku noqon karo markii labaad madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya hogaamin doona 4 sano ee dambe balse inta aanay taadhicin qayladaan culus ayaa ka soo yeertay dhinaca Nairobi taasi oo ku aadan in Siciid Deni uu tartanka ka haro loona tanaasulo hal musharax oo ah kan ugu miisaanka culus midowga musharaxiinta ka oo ay taageerayaan labada maamul goboleed ee Farmaajo ku kacsan midowga musharaxiinta iyo dalalka ka soo horjeeda dib u soo laabashada Farmaajo oo ay ku jiraan kuwa quwad leh oo Mareykanku xitaa uu ka mid yahay xilligan oo lagu jiro ololaha doorashada Soomaaliya waxaa la aaminsan yahay in diidmada Nairobi ee Farmaajo ay wax weyn u tari doonto lagana yaabo intaasi ay sii kordhiso taageerada uu heli karo iyo fursadaha uu markii labaad ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa amar ku bixiyay in la soo afjaro xogaga ahlusunna ee diidan jiritaanka maamul goboleedka Galmudug kuwaasi oo wali ku sugan deegaano ku dhow caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb siiba deegaanada Bohol iyo Huurshe oo ciidamo fara badan ay ahlusunna ku haystaan iyaga oo ku taamaya inay dib ugu laabtaan magaalooyinkii waaweynaa ee laga soo saaray sida Gurceel iyo Dhuusamareeb kulanka uu ra'iisul wasaare Roble la qaatay saraakiishii ciidanka xoogga dalka ee hogaaminaysay howlgalkii Gurceel ayaa ku aaday xilli mas'uuliyiinta ka midka ah wafdiga Roble ee Galmudug tagay ay si cad u sheegeen in aanu Roble diyaar u ahayn dhexdhexaadinta xoogaga ahlusunna iyo Galmudug oo uu ixtiraafsan yahay lana shaqeynayo maamul goboleedka Galmudug ee uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor
ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa kulan kula qaatay magaalada dhuusamareeb taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka korneyl maxamuud xasan ibraahim baakaay kulanka waxaa kaloo ka qayb galay taliye ku-xigeenka qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka xuseen axmed iyo saraakiil ka tirsan guutada shanaad waxaa looga hadlay kulankan kaalintii ay ka geysteen saraakiishaasi dagaalkii lagula jiray xoogaga ahlu sunna iyadoo oo intaa kadib uu rooble la kulmay saraakiil ka mida taliska qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka oo uu ku jiro jenaraal mascuud oo si gaara u horkacayay howlgalkii gurceel intii uu socday dagaalkii gurceel waxay dowladda federaalku ku bixisay juhdi ballaaran in la soo afjaro xoogaga ahlu sunna oo laga qabsado magaaladaasi muhiimka ah oo ugu dambeyntii laga faramaroojiyay ahlu sunna inkastoo aan dagaalka lagu kala bixin balse ciidanka ahlu sunna ay waan uga baxeen gudaha degmada gurceel iminkana hubkii ay gurceel kala soo baxeen ay ku haystaan deegaanka bohol rooble wuxuu u sheegay saraakiisha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka inay u diyaar garoobaan difaacitaanka maamulka galmudug oo uu sheegay inuu yahay kan sharciga ah ee ka jira gobolada mudug iyo galgaduud dowladuna ay aqoonsan tahay ra'iisul wasaare rooble ayaa sheegay inaan la aqbali doonin urur ka soo horjeeda dowladda ah oo doonaya inay maamul kale ka garab dhisaan dowlad goboleedka galmudug taasi oo dhabarjab ku ah hanaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyo nidaamka daadejinta dowladnimada ah ee dowlad goboleedyadu ay horseedka ka yihiin ra'iisul wasaare rooble wuxuu bogaadiyay shaqada adag ee ay saraakiisha ciidanka xoogga dalku ka qabteen galmudug intii uu socday dagaalkii gurceel saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb galay howlgalkii gurceel ayaa qaarkood dib ugu laabtay deegaanadii ay ka yimaadeen waxaase iminka ku sugan galmudug xubnihii ugu firfircoonaa ee howlgalka hogaaminayay iyada oo lagu ballamay in loo diyaar garoobo wajiga labaad ee howlgalka oo sida la rajaynayo ku wajahan deegaanka bohol oo ay ku sugan yihiin xoogaga ahlu sunna saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo dhawaan tagay deegaanka bohol ayaa waxa ay la kulmeen mas'uuliyiinta xoogaga ahlu sunna horkacaya oo ugu horeeyo hogaamiyahooda dhinaca dagaalka Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyaga oo ka dalbaday inay hubka wareejiyaan isla markaasina ay heshiis la galaan maamulka galmudug balse ahlu sunna waxay dalbatay shuruudo ay saraakiishii bohol tagay ku tilmaameen kuwa aan aqligal ahayn oo ay ka mid ahayd in la galo heshiis awood qaybsi ah oo la dhiso maamul cusub oo ahlu sunna ay qayb ka tahay iyaga oo si gaar ah u dalbaday madaxa xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha galmudug oo jiri jiray xilligii xaaf ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inaan taas loo dulqaadan karin oo loo baahan yahay in si toos ah loo difaaco jiritaanka maamulka galmudug amarka rooble iyo kulanka uu saraakiisha ciidanka la qaatay wuxuu ku soo aaday xilli ay ahlu sunna dhankeeda oo hub dibadda kaga yimid heshay ay dhaqdhaqaaq wado iyadoo ciidankooda maalmo ka hor lagu arkay jidka xiriiriya magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel siiba deegaanka ceeldheere oo si gaara ay ahlu sunna ciidan u geysay si ay ugu diyaar garowdo howlgal cusub oo ay ugu laabanayso magaalooyinka muhiimka ee gobolka galgaduud ee gurceel iyo dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa ka degay dalka isu taga Imaaraadka Carabta halkaasi oo uu kaga qayb galayo shir muhiim ah oo la sheegay inuu ku saabsan yahay arrimaha horumarinta wafdiga uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici waxaa ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliland xubno ka mid ah golaha wakiilada iyo sidoo kale diblomaasiyiin kuwa oo inta ay joogaan dalka isu taga Imaaraadka Carabta la kulmi doona mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi oo ay kala hadli doonaan mashaariicda ay ka wado Soomaaliland iyo sidii loo kordhin lahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland safarka uu ugu baxay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inuu ku qornaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi balse uu isagu u wakiishay in uu matalo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici mas'uuliyiin ka mid ah kuwa uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa warbaahinta u sheegay in inta ay joogaan dalka isu taga Imaaraadka Carabta ay ka qayb gali doonaan shirweyne ku saabsan arrimaha horumarinta oo lagu casuumay Soomaaliland isla markaana ay ku soo bandhigi doonto horumarka ballaaran ee ay ku talaabsatay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ayaa u muuqatay sanadihii ugu dambeeyay mid Soomaaliland ula dhaqmaysay sida dal madax bannaan iyada oo dadaal ugu jirta in Hargeysa ay hesho ictiraaf ay ku noqon karto wadan ka go'an Soomaaliya inteeda kale
xiriirka gaarka ee ka dhaxeeya Dubai iyo Hargeysa ayaa kordhay waxaana ay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu maalgashi ku samaysay deegaanada Somaliland iyadoo shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadku ay gacanta ku hayso dekada Berbera oo la dhameeyay wajigii koobaad oo loo dhisay qaab casri ah iminkana waxaa gabangaba ku dhow xariga laga jari doonaa dhawaan garoon diyaaradeed oo casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Berbera kaasi oo ay dhistay shirkadda DP World waxaa la rajaynayaa sidoo kale in Imaaraadku uu Somaliland ka daafuro mashaariic kale oo horumarineed oo ay ugu horeeyaan jidadka oo la casriyeynayo iyadoo heshiiska labada dhinac ay galeen uu yahay mid inta ka balaaran oo dhan walba uu faa'iido ku qabo Imaaraadku wuxuu aaminsan yahay in Somaliland ay tahay halka uu kaga soo kabsan karo guuldaradii ballaarnayd ee ka soo gaartay dhinaca Muqdisho iyadoo oo aanay wax xiriir ah Muqdisho iyo Dubai samayn intii uu Farmaajo xafiiska joogay oo uu hoos u dhacay cilaaqaadka labada dhinac lagana eriyay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta magaalada Muqdisho dhamaadkii 2017 Imaaraadku wuxuu sugayaa isbedel ka dhaca dhanka Muqdisho inta taaliga helayana wuxuu door bidayaa inuu xiriir wanaagsan la sameeyo xukuumadda Somaliland isaga oo xitaa ballan qaaday inuu kala shaqeyn doono Somaliland dadaalada ay ugu jirto ictiraaf raadinta iyo inay noqoto wadan ka go'an Soomaaliya inteeda kale safarka uu ku tagay Dubai madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa ku soo aadayay iyada oo ay halkaasi dhowr jeer oo hore booqdeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland oo ugu sareeyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhinacyada ayaa isla soo qaaday iskaashiga Imaaraadka iyo Somaliland iyo sida loo kordhin karo heshiisyada ay labada dhan wada gaareen oo ay ugu muhiimsan tahay arrimaha horumarinta dekada Berbera iyo garoonka diyaaradaha Imaaraadka ayaan wali fulin sidoo kale qorshihii uu Berbera kaga samaysan lahaa saldhig military oo ay ciidamada Imaaraadku isticmaalaan ka oo la sheegay in ujeedka ugu weyn ee laga lahaa uu ahaa in uu ka hago Imaaraadku dagaalka uu kula jiro kooxaha Xuutiyiinta ee wadanka Yemen arintaasi oo Somaliland sida la aaminsan yahay u horseedi doonta amni darro baahsan iyo cadow hor leh hadii Imaaraadku halkaasi ciidamo geysto magaalada Muqdisho al-Shabaab ayaa ka afduubtay gurigiisa sargaal hore uga soo goostay kooxda al-Shabaab iminkana la shaqeynayay hay'adda Niza kooxda al-Shabaab ayaa si la yaab leh u afduubatay sargaal hore uga mid ahaan jiray kooxdaasi kaasi oo isku dhiibay ciidamada dawladda federaalka kana tirsanaa hay'adaha ammaanka siba hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Niza sargaalka gurigiisa lagala baxay ayaa lagu magacaabi jiray Macallin Siciid Cabdullaahi kuna magac dheeraa Dilibseer Jito wuxuuna deganaa guri ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir koox ka tirsan al-Shabaab ayaa la sheegay inay gurigiisa ugu galeen kadib markii ay maqas weyn ku jareen guriga oo ahaa mid ka samaysan jiingada loo yaqaano bacweynaha sida uu helay Garaa TV sargaalkan wuxuu u shaqeynayay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niza wuxuuna dhowr jeer ka soo muuqday muuqaalo laga baahiyay telefishinka qaranka isaga oo sheegay in waqtigii uu dhalinyarada ahaa uu ku biiray kooxda al-Shabaab muddo dheerna ka tirsanaa dowladda Soomaaliya wali ma aysan bixin xog ku saabsan sida al-Shabaab ay ugu suura gashay inay ku wataan ninkan muhiimka ah ee ka tirsanaa hay'adaha amniga sidoo kale kooxda al-Shabaab ayaan ka hadlin afduubkan ay u geysatay sargaalkan waxaana la rumaysan yahay inay la aadeen dhanka duleedka Dayniile oo ay ku leeyihiin saldhig ciidan oo weyn Macallin Siciid Cabdulle Dilibseer Jito wuxuu ku dhashay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose sanadku markuu ahaa 1986 waxbarashadiisii dugsiga hoose ilaa heer jaamacadeed wuxuu ku qaatay Muqdisho waxa uuna ku takhasusay culumta network engineering-ka sanadkii 2008 ayuu ku biiray kooxda al-Shabaab oo kaga biiray Muqdisho iyadoo xilligaasi looga faa'iideysanayay aqoontiisii luuqadaha iyo tiknoolajiyadda Sergido oo July 2021 lagu wareystay barnaamijka gungaar ee ka baxa warbaahinta dawladda ayaa sheegay in shaqadii ugu horeysay ee uu ka qabtay al-Shabaab dhexdooda loona soo bandhigay ay ahayd turjumaan maadaama uu si fiican u yaqaanay luuqadaha Ingiriiska Carabiga iyo Soomaaliga wuxuu sheegay in uu gacan weyn ka qaatay in warbaahinta al-Shabaab la casriyeeyo sida uu isagu sheegtay bilihii u dambeeyay ayuu si weyn ula shaqeynayay hay'adda Niza oo arrimo badan ka caawiyay Macallin Siciid Cabdulle waxa uu warbaahinta u sheegay in samaynta warbixinada iyo muuqaalada laga soo minguuriyay shabakadaha caalamiga sida al-Saxaab
al-kataa'ib iyo kuwo kale oo al-qaacida ay leedahay ay inta badan xoogga saari jireen waayihii uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab si loo soo jiito qurbajoogta. Sergido ayaa 2014 ku biiray kooxda daacishta Soomaaliya waxa uuna u safray buraleyda galgala ee gobolka Bari wuxuuna halkaasi kula kulmay hogaamiyaha daacishta Soomaaliya Sheekh Cabdulqaadir Muumin. Wuxuu sheegay in daacish ay aqoontiisa ka faa'iideysatay sida uu ku dooday isla markaana aanu jirin farqi weyn oo u dhaxeeya labada urur ee daacish iyo al-shabaab. Sergido ayaa sheegay in daacish uu ka caawiyay inay wararka iyo barnaamijyada muuqaal ahaan u sameeyaan. Macallin Siciid Cabdulle ayaa isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya isaga oo sheegay in dagaalyahanada daacish iyo al-shabaab ay ka leexdeen ujeedkii uu ugu biiray isaga oo la shaqaynayay muddooyinkii ugu dambeeyay hay'adda NISA waxaana ugu dambeyn afduubatay kooxda al-shabaab. madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa si cara leh kaga hadlay labadii weerar ee ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Kampala ee xarunta waddanka Uganda. madaxweynaha Uganda ayaa ku hanjabay in dowladdiisu ay qaadayso howlgallo sida uu sheegay lagu ciribtirayo koox la magac baxday ADF oo ka soo horjeeda dowladdiisa kana dambeysay sida uu hadalka u dhigay madaxweynuhu qaraxyadii ka dhacay Kampala. ADF oo xiriir la leh ururka isku magacaabay dowladda khilaafada islaamka ee daacish ayaa sheegtay qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay magaalada Kampala. madaxweynaha ayaa maleeshiyaadka weerarkaasi fuliyay ku tilmaamay doofaaro sida uu hadalka u dhigay ku kacay fal wuxuushnimo ah oo caadaystay argagixisanimada. Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda ayaa ku goodiyay in kooxdan ay ku bartilmaameedsan doonaan halka ay ka joogaan ee ay fariisimaha ku leeyihiin waddanka Uganda. ADF ayaa kordhisay qaraxyada ay ka geysanayso dalkaasi xilli si weyn ay uga soo horjeedaan nidaamka dowladeed ee iminka ka jira waddanka Uganda. waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Garaa TV.